وليد بالمرة مو شاطر تعرفوا ليش بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وورد محمد إبراهيم كنا صعدتها في الصلاة ويا دكسي سريع الشاد سكندري سكول. ما أنت بشتاي 24 سبتمبر 2019 waxaa si toos ah inoogu bilaabmi doona wareeggiisa labaad barnaamijkeeni la magac baxay waxaan ku akhriyay dhigan ama buug ama qaraatu la kala kitaab arbacada hore waxaan ku soo aragnay wajigiisa koobaad buug la yiraahdo Food for Today maantana waxaan ka hadli doonaa buug la yiraahdo Teen Health hadda maanta barnaamijkeena waxa qaybta ugu muhiimsan oo buugga inoo soo diyaariyay kala doona Maxamed Jamaal Muuse sidoo kale barnaamijka maanta waxaan nagala qayb qaadan doonaa Dr. Maxamed Barre iyo Mudan Cabdaan iyo sidoo kale Cabdi Fataax hadda barnaamijkan iyo wuxuu ka hadlay iyo wuxuu ku saabsan yahay mar raba inaan ka sii hordhaco waxaan rabaa inaan si toos ah ugu wareejiyo mikrofoonka محمد جمال موسى كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل من دراسة الإرشاد منبعا للنور الدراسة وبئرا مائيا عذبا للعلوم والصلاة والسلام على معلم الناس الخير الذي ما ترك من خير إلا دل الناس به وعلما إلا علم الناس به عليه وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أولا وقبل كل شيء وحن آدو السلام يا معلمينتها دوكسية السلال الشاد سكندري سكول خاصة مامل عبد الرحيم waxaa kaloo aad u salaamayaa Dr. Maxamed Barre maanta ay taariikhdu ku beegantay 24 September 2019 waa barnaamijkeeni halku dhigiisu qaraatu la kal kitaab iyo fayskiisii labaad insha Allah taala barnaamijkeenu maanta waxa uu ka hadlayaa buugga uu ku saabsan waxa weeyaan buug la yiraahdo Teen Health waxaanu ka hadlayaa laba buug waxa ku saabsan yahay laba qaybood oo teen oo ka hadlaysa qaybtii dhalinyaranimada iyo health oo caafimaadkiya barnaamijka buugga maanta taariikh aqooneed buugga cidii qortay hadii aan wax ka taabto waxa qoray buuggan saddex dhaktar oo u dhashay dalka Mareykanka oo la kaloon jiray Dr. Mary Bronson iyo Dr. Michael John Killery iyo Dr. Beatty haddii aan mid ka mid ah taariikhdiisa soo qaato Dr. Michael John Killery waxa uu dhashay 31 June 1939 waxaana ku dhashay magaalo gobol ka tirsan gobolada dalka Mareykanka waxa uu waxbarashadiisii ku soo qaatay jaamacadaha Norwich University iyo jaamacadda Nebraska University oo ku bartay shahaadada PhD ka diyaariyay cilmiga loo yaqaano Economic and Management Business waxa uu 1977 ilaa 1996 ka ahaa Professor of Wright University oo ku taallay iyaduna dalka Mareykanka waxa kale oo daktarku ku soo qaatay waxa kale oo daktarku 1990 ilaa 2014 ahaa Professor of Miami College oo ku yaala dalka Mareykanka waxaanu ku geeriyooday 2014 bishii September magaalada Dayton ee gobolka Ohio dalka Mareykanka haddii aan inta ka soo gudbo buuggani waxa meelaha uu ku fiican yahay intaana gudagulin buuggani waxa uu anfacayaa dhammaan ardayda dugsiyada sare khaasatan secondariyada kale maadaama ka hadlay health una ka caawinayo maadada biology-ga waxa kale oo buuggani anfacayaa dhammaan dadka jecel inay medicine ko kala bartaan caafimaadka waxa maadaama uu yahay basic health ama asaasi u yahay healthkii amba caafimaadkii inta buuggani waxa uu ka kooban yahay 608 page waxa kale uu ka kooban yahay 7 unit waxa uu ka sii kooban 20 chapter hadii aan gudagalo chapterada amba unitka koobaad waxa uu ka hadlayaa taking charge of your health waxaanu ka kooban yahay 3 chapter oo kala ah understanding your health skills the foundation iyo being health consumer dhammaan unitkan waxa uu introduction u yahay buuggeena amba hordhac u yahay unitka labaad waxa uu ka hadlayaa building safe health relationship waxaanu ka kooban yahay isna afar chapter oo kala mental and emotional health promoting social health iyo relationship that 10 years conflict resolution waxa uu buug chapterkani ka hadlayaa noocyada dhibaatooyinka ee dareenka maskaxeed waxa kale oo ka hadlayaa calaamadaha lagu garto shakhsiyaadka aan social ahaan caafimaadkiisu saxayn amba aanu caafimaad qabin waxa kale oo unit ka saddexaad uu ka hadlayaa physical health and fitness
waxaanu ka kooban yahay laba chapter oo kala nutrition for health iyo physical activities and fitness iyo your body image dhammaan unitkana waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay nafaqada iyo noocyada cuntooyinka nafaqooyinka leh oo ay qofku waxa caafimaadkiisa ayaa taam noqonaya markuu maxay heeday balanced food qaato amba cuntooyin nafaqo leh waxa kale oo ka hadlayaa unitkani faa'iidooyinka ay leedahay jimicsigu iyo jidhisku unitka afraad waxa isaguna ka hadlaya making safe and drugs free decisions waxaanu ka kooban yahay saddex chapter oo kala ah medicine and drugs alcohol and tobacco waxaanu ka hadlaya noocyada medicineka sida ay medicineka jidhka ugu faafaan waxa kale oo ka hadlaya siyaabaha loogu hortagi karo drugska chapterka labaad waxa ka hadlaya tobacco waxaanu ka hadlaya isaguna amba buuggu inoo sheegaya tubaakada iyo noocyadeeda iyo dhibaatooyinka ay leedahay tubaakadu unitka shanaad waxa uu ka hadlaya understanding your health waxaanu ka kooban yahay isaguna sidoo kale saddex unit oo kala personal care your body system iyo growth and development waxa uu ka hadlaya unitkani daryeelka shakhsi ahaaneed ee qofkiisa jidh ahaaneed sida tusaale ahaan oo kale amba jidhkiyo qaybihiisa iyo kaleba waxa kale oo ka hadlaya your body system amba maxay ahayd sistemadii jidhku lahaa sida digestive system iyo kale circulatory system iyo kale reproduction system iyo kale unitka lixaad waxa uu ka hadlaya disease and disorders waxaanu ka kooban yahay laba chapter oo kala ah communicable disease iyo non communicable disease cudurrada faafa iyo cudurrada aan faafin tusaale ahaan oo kale marka cudurrada faafa oo kale wax kamid ah durigiyo kale waxa kale oo ka hadlaya unitkani siyaabaha amba looga hortagi karo amba loo xakameyn karo cudurrada unitka u dambeeya toddobaad uu buugani ka kooban yahay waxa weeyaan safety and environmental health waxaanu ka kooban yahay laba chapter oo kala ah safety and emergencies iyo environmental health chapterka dhammaan wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii la xiriirayay deegaanka intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi ما شاء الله محمد جمالات بما صنتها إمكانه وحن كسر دوينا يا مامولي أنا مدن عبد الرحيم سو درين كسو قريب تبوجين المانتا كسر دو مامولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي درين كيجا يا شعور كيجا ما عبري كرايو فرحت درت والله يعني hawsha aynu wadno oo ah hawl waxbarasho markasta oo hawsha aynu wadna ay sameynayso tadawur iyo horumar waxay ku ziyaadinaysaa yani farax iyo dil fiican waxay ku tusaysaa hawshii aad waday oo runtii halkii la doonayay iyo meeqaamkii la doonayay ku socota aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bacdallahi waxaan aad ugu mahadnaqayaa hogaamiyaasha runtii hogaaminaya barnaamijkan aadka u quruxda badan leh ee ka socda dugsiga sare ee Al-Irshaad Secondary waxa ugu horeeya Cabdidaayim Xuseen Awdiiriye Cabdi Fataax iyo runtii groupkoodan ardayda ah oo ah runtii dhammaan ardayda dugsiga sare ee Al-Irshaad qaybihiisa kala duwan 1 ilaa 4 oo runtii group mar uu samaynayo oo soo bandhigayo barnaamijkan ah قرأت لك الكتاب يعني دبتا جرتا maanta waxbarashadii haysata guud ahaan Soomaaliya waxa ka ah in ardayga wax baranaya oo ah mustaqbalkii bariito wala wax bedeli lahaa dhinac walba kaliya in wax loo baranayo imtixaanka ku baas deedna sida caadiga ah way aragnayo marka kasto imtixaanku soo dhow yahay waxa aad u bata wax akhriska ardayda taasi waxay ku tusaysaa in wax loo baranayaa kaliya uu yahay imtixaanka ku baas taasina sax maaha bal wax barashada la wadaa waxa weeye inay noqoto mid wax ka bedesha mujtamaca naftaada wadankaaga horumar keenta waana runtii barnaamijkan imka aynu wadno oo imka Maxamed Jamaal khayr Allah siiyo
buuggan uu inoo akhriyayay ka hadlayay runtii caafimaadku waxa weeyaan caqliga fiican iyo horumarku wuxuu ku jira caafimaadka qofka haddaan caafimaad haynin oo bulshadaasi ay tahay bulsho bugto oo aan caafimaad qabin horumar ma jirayo horumarka waxa kow ka ah in horta bal qofkan raba inuu wax sameeyo uu yahay qof caafimaad qaba aqoontuna runtii waxay u baahan tahay aad baranaysaa inay noqoto mid practical ah waxaanu arkaynay maalintii dhaweyto oo laga hadlayay cuntooyinka aynu cunno iyo bal noocyadooda dhibta maanta waddankeena haysataa waxa yaala maanta waddankeena intaasoo xanuun oo aan hore u jiri jirin waxa loo aaneynaya oo dhakhaatiirta iyo nimanka khubarada ah runtii aad u daraaseeya ay kow ka dhigayaan maanta caafimaad darrada iyo cudurradan faraha badan leen jiri jirin maanta soo kordhay cuntada aynu cunaynaa kow ka ah oo aan control hayn ardaygu ma aha inuu noqdo maktuufil ay dimid fadhiya waa in isaga laftiisu researchka nimka aan sameynayno iyo qiraa'adan aan sameynayno waa inay noqotaa mid wax bedesha oo ah maxaa sababay caafimaad darradeena cuntada aynu cunaynaa waa noocma because arday wax aqriyaa tahay wax kasta oo aynu cunayno waxbaa ku qoran introduction bay u sameeyeen halkan waxbaa ku qoran in la eego oo la analyze gareeyo oo yiraahdo bal waxaan ku dhex jira ee meesha ku qorani maxay faa'iido inoo leeyihiin maxay khasaare inoo leeyihiin dheedkoodu waa maxay oo inaga lafteenu ilaan bulshadii baynu nahay waxaan ay ku socotay oo aqoonteenu ay noqoto aqoon practical ah irshaad iyo runtii barnaamijka aadka u qiimaha badan leh ka socda aad iyo aad baan u hambaleynayaa bulsho walba cid baa u kacda oo wax ikhtiraacda wax hindista dabadeedna waa la dabagalaa wixii fiican marka waxaan jecelahay inay noqoto ardayda dugsiga sare al-irshaad wax ka barataa inay noqdo kuwa iyagu arrimaha horseed u noqda ee aqoonta ay baranayaan practical u bedela inaan taa inagu noqono hoggaan ka noqono dhammaan iskuulada kale ee waddankeena ka jiraana aynu noqono qaar ay kaga daydaan baan aad iyo aad u rajaynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ugu faraxsanahay hawsha fiican iyo barnaamijka fiican ee awadaan waan idinku garab taaganahay wax kasta sida uu sheegay gudoomiyaheena guud maxamed aadan askar oo ah runtii gudoomiyaha hay'adda director ahna gudoomiyaha dugsiyada al-irshaad sidoo maalintii dhawaatada halkan ka sheegayay mar walbana sheego ficil ahaan aynu uga aragnay barnaamij kasta oo horumar sameynaya way inagu garab taagan yihiin annaguna ka maamul ahaan way idinku garab taaganahay aadna waa u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay جزاكم الله خيرا هذه أدبا وماتنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad buu mahadsan maamulku kelmadiisaas maanta waxa halkan inoogu martiyo barnaamijkeena marti inoogu ah daktarkeena weyn ee Dr. Maxamed Barre marka waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Barre si uu maanta isaguna halkan kelmadiisa uga sheego ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxa mahadle Allah subhanahu wa ta'ala isku keenay madashan lagu daraasaynayo ama cilmiga la isku weydaarsanayo intuu arday kamida ardayda dugsiyada al-irshaad waliba ardayda sanad galaasida foontuuga intuu buug ilaa 600 page inoo soo akhriyay aynaguna ka faa'iideysanayno waa fikir fiican wixii xasuusiyay aniga waqti hore oo ilaa 10 sano laga joogo si aan maxay toolay wax u baran jirnay oo moodid maanta inay imika ka sii baxaso oo xilli waxaan xasuustaa xilli aan boarding ku jiray chapterka ama course-ka gabigiisaba intan mid kaga sii tagan ku dhaasi akhri adhood ugu dul akhridida oo waqtigii safety of maxay tahay ama waqtiga time management-ka khuseeyay kadibna marka hadhow waxayga hawlahayga iska soo qabsado oo ii bilaabi jiray page ka koobaad ilaa iyo page ka u dambeeya oo igu dul akhri jiray ama maalinteedana aan ku dul akhri jiray laakiin ilaahay ba mahadle بعد الله وحنا مهدنقنا دادهياش برنامج كان أو جهر ريو معمولهنا وبعد الله لأنتي يعني أوشن صورة قشان إيو لبدي سبال عبد الداين حسين الديرية يا عبد الفتاح إسماعيل عبدي
haddaan u soo gudego buuggan wuxuu ka hadlayo waa teen iyo health waa laba kelmadood oo aad muhiim ah teen haddaan aanu nimaadno teen erayo badan baa la isticmaalaa teenage teen adolescent young adult youth kelmada aad u fara badan baa loo isticmaalaa kelmadaas oo kaliya isku macnana way sheegayaan laakiin wadamada ay ku kala duwan laakiin teen haddaan soo qaadano kelmada teen waxay ka timi da xasaasiya oo ah da'da ka bilaabanta 13 teen halkay ka timi waxa weeye 13 bay ka bilaabataa oo 19 bay ku dhamaataa labada waxa u dambeeya teen da'da u dhaxaysa 13 jirka ilaa iyo 19 jirka ayaa la yiraahdaa teen age waa da'dii maxay toolay dhalinyarnimada haddaba maxaa course dhan looga dhigo buug dhan looga qoray ayay imanaysaa teen intaan health ka iman teen waa critical period waa waqti khatar ah qof kasta noloshiisa soo mari kara ama soo maraba waayo waa waqti kala guura waqtiga kala guur waxa weeyaan bimacna qofku wuxuu ka tagayaa caruurnimo qof weyna muu gaadhin marka waa transitional period baa waqti kala guura weeye sidaa daraadeed waxyaabo badan waa caruurnimadii guriga lagu hayayna wuu ka tegay qof weyn oo ismaamulayna muu gaadhin waa xilligan ardayda ay form 1 ka bilaabaan ilaa intay form 4 ka baxayaan baa dhahdaa celcelisaan teenage la yiraahdo marka wax kasta samee wax kasta qof weyn sameeyo maadaama meesha ay imanayaan calaamado ku soo kordhayoon caruurnimadii aanu lahayn oo ah calaamadaha qaangaarka rag iyo dumarba ama wiilal hablaba wuxuu isku bedelayaa physical ahaan jir ahaan wuxuu isku bedelayaa psychology ahaan sidoo fikiraya xitaa iyo sidoo caruurnimadu fikiraya way kala duwan tahay wuxuu isku bedelayaa social bulshada xitaa lafteeda oo wax la yiraahdo peer pressure aabihii uu ka tagay hooyadiiba wuxuu haayay asxaab u yeeshay asxaabtaas markaa noqonaya macooda markasta waxay sameynayaan kaga dayanaya wuxuu isku bedelayaa pubertal change waxa la isbedelka xagga muxuu haayay qaangaadhnimada oo calaamado hore oo saan sheegay hore u sheegay ayaa soo ifbaxaya oo habliyo kale tusaale ahaan de waxay galayaan xilli garanayay aanay ku cusub inamaduna saas oo kale muruqyo yeelanaya hormoona waxaan ka shaqaysanay ilaahay ku abuuro waqtigaas muxuu haayay oo soo deynay jirkoodu kadibna isbedelada saa dhacay haddaba kelmadda health hadaynu soo nimaadno isaga health waxa weeyaan qofku inuu buuga badankiisa wuxuu ka hadlayaa Allahumma salli ala Muhammad normality-ga qofka shay markuu caadi yahay ama uu caafimaad qabo health maxaa lagu dhifaan garay isagana maxaa qeexitaankiisa wuxuu noqonayaa waa qofka si dhameystiran jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan aqoon ahaan oo caafimaad qaba ma aha oo kaliya muxuu ahaayay qofkaasi xanuun ayuu ka bari yahay ma laakiin muxuu ahaayay wuxuu caafimaad physical ahaan iyo waxa soo dhan waaya haddaba maxaynu buugan muxuu xoog u saarayaa teen wuxuu ga hadlay adultiga iyo childrenka iyo waxaas waxaan ognahay waxa jira population-ka adduunka dad eegtid majority marka afar meelood loo qaybiyo hal meelood waxa weeyaa waa teenage sidoo kale waqtiga kala guurka isaguna xasaasi u baahan baahiyihiisa gaarka iyo teenage-ku ah asadku wadan kasta leeyahay ama hantida wadan kasta leeyahay hadii teenage-ku ka xumaado caafimaadkooda xumaado oo muxuu haayay waxay noqonaysaa inuu wadankaasi dib u dhac u sameeyo marka waa investment ama maalgelin la sameeyo hadii caafimaadka teenage-ka laga shaqeeyo waa investment la sii gashanayo mustaqbalkii wadanka oo ifaya haddaba sideebuu hadaba teenage-ku qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa aan soo koobo sideebuu teenage-ku caafimaadkiisu normalka u ahaan kara oo qodobka ugu muhiimsan waxaan ku soo koobay ilaa 8 qodob qodobka waxa weeye horta oo ay teenage-ku maadaama uu transitional period ka aan sheegay uu soo galay oo baahiyo badan u baahan yahay horta waa inuu biyo badan waa inuu cabaa caafimaad ahaan waa jirkiisu si xawli u shaqeynaya marka waa inuu plenty of water
maxay tahay maalintii 6 koob ama meelaha uu cabaa celis ahaan sidoo kale waa inuu u sameeyo metabolismkiisa iyo jidhka shaqadiisa iyo waxa soo dhan oo hadii kale waxa ku dhacaya abnormality ama ill health waxa la yiraahdo ama inuu calool istaag waxyaabaha soo dhan waayahay qodobka kale waxa weeye regular exercise uu sameeyo qofka duutiinay soo gaaraba exercise waa inuu sameeyo maalintii ugu yaraan 60 minute meelaha waa inuu ama exercise ka uu sheegay inuu gym galayo wax noocaas exercise wuxuu noqon karaa socod wuxuu noqon karaa inuu kubad ciyaaro inuu sameeyo muxuu haayay basket ciyaaro inuu muxuu haayay push up sameeyo any kind of exercise uu sameeyo ayaa loo baahan yahay soo dhamaan energy-giisa ama awoodaha ku kaydsanay oo meel kale uu ku aafeyn lahaa uu muxuu haayay ugu lumiyo halkaas 3 eat a healthy diet waa inuu cunaa waa xagga nutrition ku buugu in badan oo ka sheekeynay waa inuu healthy diet cunaa healthy diet-na cunto uu cuno maaha cunto laakiin healthy diet cunto dheelitiran oo balance ah waa inuu cunaa waayo waxa jira arday badan ama dhalinyaro badan oo ka boosiyeba quraacdo kale oo problem bay ku noqonaysaa mustaqbalkooda hadii quraacda oo kale uu ka boosiya ama qadada oo kale ama aan cuntadiisu aan dheelitirnayn waayo caafimaad darro keenaysa 4 sidoo kale weightkiisa ama muxuu haayay miisaankiisa waa inuu controlaa qofka teenage-ku waa imka adduunka waxa laga cabanaya dad imka dhageysatid muxuu haayay wararka ugu doorka roon leh waxa laga hadlayaa overweight obesity waxyaabo noocaas qofkii buurnaalina aad u naaxayo teenage hadana ah waxa ku keenaysaa non communicable disease ku ka sheekeynay Maxamed Jamaal ay keenaysaa diabetic hypertension waxyaabaha soo waaye qodobka shanaad waxa weeyaan get enough sleep oo ta ugu daran imka teenage-ka dhibaatada waxa weeyaan hurdo ku filan badan ama seexda oo wax laga caawin inuu ku soo jeedo ama ciyaar ama muxuu haayay film ama social media waxyaabaha soo dhan waxa weeyaan waa inuu 8 saacadood uu yaraan 8 hours waa inuu seexdaa waa enough sleep hadii kale emotionally uu ka sheekeeyay Maxamed emotionally ayuu qofkaasi oo mental health problems wax kale ka yimaada ama xanuunada dhimirka la sheegaa oo stresska iyo muxuu haayay wariga ama warwarka iyo walaaca iyo khayraad iyo xaasoo wax kale ka yimaadaan waa maskaxda iyo nasan weeyay dhalinyaraduna qodobkaasi waa qodob hadiye jaraale saameyntiisa ku leh qodobka lixaad waxa weeyaan in hadiye jara hadii talaalo kale qofku cudurrada qaar badan la iska talaalo imka communicable disease-ka uu ka sheeganay Maxamed waxa kamida hepatitis B oo kale oo wadankana aafa ku haya dhalinyarta in badan haya ama dadka xitaa muxuu haayay aad u haya waxa la doonayaa inay iska talaalaan talaalada muhiimka ah wadanka yaala laftiisa waa inay ay maxay toolay ay isticmaalaan ama ay laga talaalo weeyo maadaama ay mustaqbalka wadanka yihiin hadii kale xanuunkii ay xanuunkina hadhow dawo ma waa viral disease 7 waa in personal health caafimaadkooda aan ka ku soo aan isku soo duubo personal health aad buu balaaray haday tahay maarashadii haday tahay muxuu haayay calayashadii haday tahay muxuu ahay timihii waxyaabaha soo dhan personal health haday tahay balwadihii oo waxyaabaha ugu khatarsan ee buugu ka sheekeynay waxa kamid ah in balwadaha tubaakada iyo sigaar cabista iyo waxyaabaha soo dhan xilliga uu qofkan uu isleeyahay wax kasto la sameeyo waa xilliga teenage-ka weey marka waa in personal health-kiisa uu ilaaliyo qofku ama qofka teenage-ku qodobka u dambeeyana waxa weeyaan hadiye jaraale waa teenage-ka aad uga caanto inay heesaha iyo waxyaabaha music-ka ama heesaha ay noqon dhagahooda u daran inay dhageystaan taasna waxay saameyn ku yeelanaysaa ama behavior-koodii ama akhlaaqiyadkoodii ama caafimaad ahaan dhagihii waxyaabaha soo dhan intaasaan ku soo gabagabeynaa aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum aad u mahadsan yahay macalinkeena weyn Dr. Maxamed Bare waxaan dhiin karnaa buugaba uu noo soo koobay wuxuu ka hadlayay imikana waxaan si toos ah ugu wareejin doonaa Mr. Cabdayn bismillah waxa farxad iyo aniga in ilaahay mahadi maanta uu yahay barnaamijkii labaad waxaan ku soo akhriyay kitaab oo runtii magacan bixintana uu leeyahay Salaaman Baashe waa abaalkaan aynu ugu hayno runtii bulshadii dareen baa ka soo baxay barnaamijka hore farxad leh bulshada aad bay ugu riyaaqday waayo inaan foowana ama foontuy ama foontriya
oo maanta halkaa marayo waa wax markaa ummad ahaan aynu ku faanayno kolay in yar baan ku darsan lahaa badiba hadalku waxaa dhakhtarkaa qaatay teen healthka marka laga hadlayo waa 3 dhadhaarood ama waa triangle oo saddexdii erey lagu define gareeyo caafimaadkana uu yahay koo waxa weeye inuu qofkani wax la yiraahdo mental ama emotionally ayuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa social wuxuu kaloo ka hadlaa physical marka la emotional maskaxda qofkani ilmaha yar marka xilligaad ku jirtaan teenagerka psychology waxay yiraahdaan waxay ku jiraa qofkani self identity wuxuu raadinayaa who am I shakhsiyad noocay baan ahay laba social marka laga hadlayo family wuu noqdaa family uu diyaar garooba waalidku uu diyaar garooba ilmaha yar uu diyaar garooba isbedelka inuu ku yimaado inta badan dhaqanka Soomaalida hadaad eegto hooyooyinkunba ilmaha gacanta ku hayso inankii 5 jirka ama inantii 5 jirka ay marka xilliga marayso ay damacda hooyada inay rabaayint ama wax aqrinta gacanta ku qabato ilmihiina marxalad kale u gudbo marxaladda u baahnaa marka aabaha ayay ahayd therefore conflict baa yimaada heblo way fariisan laadahay hogaye ana tacabkii waa kuwa marka hooyada halkaas bilaawdo marka waxaan ku wacyi gelinaynaa waalidku inuu noqdo mid la saaxiib xilliga ilmahaaga la saaxiibo weeyaan dilma xilliga lama dilo think markuu waa la talin badan baa la siiyaa waayo waalidkaaga marka kali ilmaha marka hore waalidku xoog buu jecel yahay mar alla markuu think bilaaw inuu wax la yiraahdo asxaabtii uu ka jeclaado waalidkiisa saarnaysa marka family waa very important the age kan marka laga hadlayo waxa kale iyaduna muhiim ah friends oo ah qolada marka aad xiiseynaysan friendkaaga haduu ka xumaado saaxiibka ama jaalahaaga haduu ka xumaado kabtaa ma yeelna marka iyaduna social physical no taqaana wax weeyaan waa waxad preparation bad dhakhtarka iga horeeyay waa preparation uu jirka ku diyaar garo physiology ahaan metabolism kaaga anabolic waxa loo qeybin jiriyo catabolic marka anabolic building up kaaga ayaa xoog u socda saddexdaas had igoraan marka saddexdaas social iyo physical iyo wax loo yaqaan matal ayaa saameyn qofkan ku leh had igoraan waxa ku jiro teenager kan xilli loo yaqaano adolescence sidoo dhakhtarku taabay oo Soomaali waxa lagu oran jiray sindeer waa taqaana waxa uma deeqayaan cunto badan bay cunayaan ma fariisanayaan waxaad arkaysaa inantii yarada ama inanka yarada baxay qof haduu wadada maray buu la sheegaysanayaan sindeer baa leeyahay marka waa tii ninkii lahaa nin tuug baa reer u soo dhacay baa leeyahay xilligii bariga hore cuntada karinta oo iska yareen markuu soo dhacay ayuu siiri xoogaa reerka xambadaad yara cunti inay baa joogto sindeer ahayd waqti kaasoo toodantana iyaduna garab dhano wax harba la siiyay soo garab wax harkibay suluugtay oo cuni kar weeydi oo suluugto markaa way ooyaysaa habeenkii oo intuu sugay markay habeenkii waqti intii badneed tagtay buu soo kacay markaasuu yiri maxay inay yari ma dheerabto inay garab wax harma deeqdo la maxay marka sindeer baa leeyahay waa xilliga cuntada aad loo baahan adolescence baa la oray waa daada u dhaxayso 12 ilaa 15 age ka u dhaxayso daadan waxa waa fast period of growth physicalka jirkaaga xoog buu koraa koritaankan wax kale ma sababay hormones baa la soo daayaa oo marka different functions jirkaaga la promote gareynayo si qof ahaan lagu diyaariyo inamada marka daadada koritaanka wuxuu bilaabmaa 13 jir ilaa 16 jir dhar hada inta weeydo mar dambe suud dharkaaga waa inta hablu laakiin halka way ka horeeyaano waa 12 inta badan ilaa 14 marka inantu iyo inankii isleeka inantiiba ka hor korayso taa halka cugdad buu inamada ka qaada wax la horeey waxaaga xunay hagaas inantii soo qa meel martay daadani waa daa marka hadii goor laba erebay psychology ay ku qayaxan energetic waa tamar badan baa leedahay qeerxada inuu laba risk taking marka sana maxad halis u tahay inaad maxay mujtamaca halis aad he habdhaqan halis inaad la kulanto waa wax ka soo kugu cusub yihiin therefore
إما دكتور قال tilmaamo weeyaan marka la leeyahay wax weeyaan energy hurdadii waqtigii badnaay macallinkii sheegay aad u baahan tahay dhakhtarku waxaad ku soo koobaysaa waqti soo jeed baad ku bedelaysaa taayimii wuxuu ku imaanaysaa subaxii kala kacsano dadana 10kii marka ay fahmadina kaba ma yaala waxa jira astaamo uu leeyahay xilliga teenager waxa weeyaan inaad aragto mar ima go'aan baad isla qaadanaysaa ama ima saacad waxa la waqti yar soo ilmi faraxsan muddo dabadeed hadda waxa la soo maxay caroonaya isbedeladaas leeyahay farxadiina waa too much sidaad u murugootaana waa too much habdhaqanada laga rabaa inuu noqdaa qof si fiican u fakara oo xagga wanaagsan u fakara dareenkiisa dareen ku caawinaya inuu noqdo habdhaqan wanaagsan leh intaasaan aan ku darsan lahaa وليد بالمرة مسافر تعرفوا ليش